nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiyaha ma garanaya nabiga sal alla alay slam magaalada madiina wuxuu u soo galay awrkaa inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaa buu nabigu degdegay maadaamuu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaa buu nabigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaa buu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yidhi war xaggee soonagii kala iibsanay ma ninkii reer baadiyaha yidhi gamaad iibsan markaa buu nabigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgarannay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaa buu nabigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiina o dhan baa ku soo urmay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaa buu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaa buu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanaynay meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadankanaad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol hay wax sir aanu nagama sido mee sir baad naga wadaa iyo nagama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu u soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timahaygii tidcanaa ayaa warqad intaa le ka soo saartay warqaddii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuulallah waatan gabadha sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya xalaqaduu dhegaysanaya waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa
xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa uu ka warramay marka uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladda islaamka sirteedii buu gudbiyey markaasuu nebigu sal allahu alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayey anaa qoorta ka goynaya igu fasax buu ka yidhi markaa buu nebigu yihi cumar u kaadi buu u kaadi ha degdegin yaa xaatib labayk ya rasuul allah saasuu leeyahy labayk ya rasuul allah sarakac buu ka yidhi ustaad sirteenna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu ka yidhi wuxuu uhi yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi ragga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkaygii iyo reerkaygii baan quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is odhanayaan xaatib inninkuu inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas ina reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaana yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nebigu aamusay sal alla alay wasalam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii suurati awaa'ili suurati almumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka mu'miniinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal mu'miniintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulka inaysan awliyaa ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogayn ahlalbedri buu ahaa ninkani waa reer beder waa 313 nin ee dagaalka baderigala qayb gashay weeyaan ahlalbedrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla bedrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla bedrin waxaad doontaanba sameeya ininka dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka bedriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su'ul khaatima ku dhimani maaye xusnul khaatima yuu ku dhiman doona marka u dambaysa laanna maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu beder inay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi asalaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albeder fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka beder kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu uhi min afdali almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka beder soo dhaadhacdee nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan تقدير وما قدروا الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته
قدرك إلهي أولها ما نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رجع ساقرت قدرك رسولك